السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا جنة الكمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهتسنتين maanta waa khamiis waana 29 bisha shanaad ee May sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago ninkii madowga ahaa ee Derek Thompson oo shantii gabdhood ee Soomaalida ahayd shilka gaari ku dilay bishii June ee sanadkii 2023 oo maanta dacwadiisa ay bilaabatay haddaba xerbeegti ayaa la xulay oo talaadadii ilaa Arbacadii labadii maalmood oo la soo dhaafay la xulayay maanta ayaa hadallada furitaanka ee dacwadda ay bilaabanaysaa sidoo kalena waxaa jirta in qareenada difaacaya ninkan madowga ah ay qarka u saaran yihiin in ay guul ka helaan dacwaddan sababo la xiriira garsooraha dacwadda dhageysanaysa waxyaabo ay xukmisay maxay yihiin dacwadaha uu ku eedeysan yahay imise sano oo xabsi ah ayuu mutaysan karaa waxyaabahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idinla wadaago haddii alla idmo Thompson oo 29 jir ah horay nin aqalka hoose ee Congress-ka ama baarlamaanka gobolka Minnesota uga tirsanaan jiray ayaa dhalay ninkan waa nin horay xabsiyo kala duwan u soo maray marka waxa uu shil gaari ku dilay 5 gabdhood oo Soomaali ah oo waliba da'yar oo da'doodu 17 ilaa 20 sano u dhaxaysay 16 bishii June ee sanadkii 2023 waa 2 sano ka hor maalmo yar ayaa ka harsan 2 sano ninkan marka waxa uu ku eedeysan yahay 10 dambi 5 dambi oo ah dil uu gaari ku geystay iyo waliba 5 dambi oo ah in dil heerkiisu yahay midka saddexaad laakiin waxa la leeyahay waxa adag in la cadeeyo dilka heerkiisu yahay midka saddexaad sababo waxyaabo la xiriira garsooraha kiiskan dhageysanaysa ay u xukmisay dhinaca qareenada difaacaya ninkan haddaba shilkan sidoo ku dhacay ninkan gaari ayuu ka soo kireystay airportka Minneapolis SUV oo Escalade isagoo ku socdo highwayga 35 West ayaa waxa uu arkay waliba speed gareynaya ayaa police uu arkay booliskii markii uu ka soo daba dhaqaaqay kadib 4 lane ayuu bedeshay waxa uu ka baxay exit-ka Lake Street waliba isagoo ku socdo 95% 55 ayaana loogu talagalay wadadaasi highwayga qofku waliba marka uu exit ka baxayo oo highwayga ka degayana waxa loo baahan yahay gaarigiisa inuu qaboojiyo marka 40 mile per hour boqolkiiba ayuu ka sareeyay intii loogu talagalay markaas kadib gaarigana waxa ugu jiray qori sharci darro oo ninkan looma ogoleen hub inuu qaato horay ayaa dambiye loogu helo xabsiyo ayuu u soo maray waxa u saarnaa daroogo cocaine iyo waliba fentanyl ayaa gaariga u saarnayd walaalkiina qaybta passenger-ka ayuu saarnaa hadda waxa ku eedeynaya walaalkiis inuu gaariga wado waan u tagi doonaa arintaasi marka ninkan markuu exit-kii ka baxay red wadada qofku markasta oo highway ka dageyso red light ama cas ama gaduud ah ayaa ku yaala hadii marka waa inaad ka istaagtaa ilaa uu ku furmayo ma uusan ka istaagin kadibna 5 gabdhood gaari ay wateen oo Honda Civic ayuu bartamaha ka galay halkaasi ayaana 5 gabdhood ay ku geeriyoodeen isla markiiba ma uusan u gargaarin xitaa gabdhihii waa uu cararay gaariga waa uu ka baxay Taco Bell u dhow isagoo fadhiyo oo dhaawacyo ay u muuqda in qofkan uu shil galay ay ka muuqdaan ayaa boolisku ay soo qabteen marka sidaasi ayuu shilku ku dhacay marka jury 14 xubnood ayaa la xulay waxa adkayd in dad Soomaali ah laga qayb galiyo maadaama dadka Soomaalida inta badan marka jury la xulay dadka waxyaabaha la weydiiyo waxa kamid ah kiiskan maxaad kala socotaa marka Soomaalidu dhamaantood ama way la socdaan ama way yar tahay qofka aan la socon kiiskan 5 gabdhood ay ku geeriyoodeen sidaas darteed hadii marka qofku Soomaalidu qadii isla markiiba guilty ninkan waa dambiile leeyihiin marka sidaas darteed waxa la raadiyay xerbeegti ama jury dhaxdhaxaada 14 qof ayaa la xulay ma u maleynayay inay Soomaali ku jiraan waliba aan la kala sheegin cadaan iyo madow ama Soomaali hadii ku jirto aan lama kala cadeynin juryga laakiin 14 ayaa la xulay sidaas darteed marka ayaa dacwadda hadallada furitaanka ay maanta ku bilowdeen waxay socon doontaa ku dhawaad muddo 7 ama 2 toddobaad markaas kadib ayaa waxa go'aanka xerbeegtidu ay soo saari doonaan laakiin ninkan waxa jirta in sidoo kale xerbeegti federaal ah ay ku heleen dambi federaal ah oo ahaa in uu watay daroogo iyo waliba hub sharci darro ah waxaana xerbeegtidu bishii October ee sanadkii 2024 ay Derek Thompson ay ku heleen dambi ah in uu watay 2000 oo kaniiniga nooca fentanylka iyo sidoo kalena fentanyl la tumay oo iyaduna budo ah iyo 36
gram oo cocaine iyo weliba bustoolad cabaysan iyadoo weliba ninkan aan loo ogolayn in uu wax hub ah uu qaato. Horey ayaa dambigaasi loogu helay mid federaal ayuu ahaa. kan hadda dacwadiisa ay maanta bilaabatayna waa stateka oo ninkan dilkan uu geystay. Marka waxaa jirta inay adag tahay marka in dacwad ogayaashu ama xeeralayaashu ay cadeeyaan dilkan heerkiisu yahay midka saddexaad oo 5 dambi uu ku eedeysan yahay. maxaa yeelay waxaa caawinaysa in qareenada ka soo horjeeda oo difaacaya ninkan ay horey maxkamadda racfaanka ay ugu xugmisay in aysan maxkamadda aan lagu soo bandhigi karin ninkan in horey dambiye noocan oo kale ah uu soo galay oo ay kamid tahay 2018 in qof wada goynayo shacaba oo haweenaya uu gaari ku dhuftay dhaawac halisana ay ka soo gaartay sidoo kalena horey ninkaasi xabsi uu u soo maray. marka arintaasi garsooraha waxay tiri oo Carolina Lamas la yiraahdo maxkamadda laguma soo bandhigi karo oo juuriga looma sheegi karo ninkan in horey dambigaasi uu u geystay. marka xeer ilaalinta arintan way caawin lahayd ama gobolka in ninkan horey dambiilo uu ahaa la sheego, laakiin garsooruhu waxay tiri maxkamadda laguma soo bandhigi karo arintaas. taasina waxay caawinaysaa qareenada difaacaya ninkan Derek Thompson waxaa loo soo bandhigay bishii Agosto ee sanadkii hore sidoo kale in uu qirto 5 dambi oo ah dil inuu gaari ku geystay, waxaana laga cafinayaa oo laga cafiyo loo soo bandhigay 5 dambi oo ah dil heerkiisu yahay midka saddexaad. laakiin arintaasi waa uu diiday 32 sano oo xabsi ah ayuu ku mutaysan lahaa. maadaama uu diidayna waxa uu go'aansaday in uu sidoo kalena maxkamadda ama dacwadiisa ay bilaabato, waxaana uu mutaysan karaa hadda haddii 15 dambi lagu helo 50 sano oo xabsi ah. waxaana garsoore Carolina Lamas ay sheegtay maanta laga bilaabo in kaamarooyinka loo ogolaan doono maxkamadda in wax laga duubo. inta badan maxkamadaha lama ogolo xilliga dacwadaha ay socdaan in sawirro la qaado, sketch ayaa la sameeyaa, sawirro matalaya dadka kuwa maxkamadda saaran, qareenada, kuwa difaacaya, kuwa ka soo horjeeda iyo weliba eedeysanayaasha. laakiin hadda kaamarooyinka ayaa loo ogolaanaya. sidoo kale waxaa jirta in waxyaabaha adkaynaya dilka heerkiisu yahay midka saddexaad oo 5 dambi ah in lagu helo ninkan waxa uu leeyahay Derek Thompson markii la soo xiray inkastoo uu dacwadii federaalka uu ku qirtay in isagu uu gaariga waday walaalkiina passenger oo uu rakaab ahaa, laakiin hadda waxa uu leeyahay anigu gaariga ma aanan wadin markii shilkan 5 gabdhood ay ku dhinteen uu dhacayay, walaalkay Dimarco ayaa waday. sidoo kalena waxa uu leeyahay daroogada meesha laga helay anigu ma aanan lahayn. arintaasi marka waxa ay leeyihiin qareenada difaacaya Derek Thompson dacwadahan qof qaldan ayaad ku soo oogteen oo isagu gaariga ma uusan wadin, laakiin walaalkii Dimarco ayuu hadda eedda dusha uu ka saaraya. 5 gabdhood ee dhintay 16kii bishii June ee sanadkii 2023 habeenimo Jimcaha ayay ahayd. maalinta ku xigtay oo Sabti ahayd aroos ay isku diyaarinayeen, xitaa cilaan ay soo marsadeen ayaa la yiri. marka gabdhahan waxa ay magacyadoodu ay kala ahaayeen wada S ay ka bilaabaan, dad isku dhow ama qaraaba ay ahaayeen. Siham Aadan iyo sidoo kalena Sahra Geesa Cadde, Sagal Xirsi, Salma Cabdiqaadir iyo Sabreen Cali oo da'doodu 17 ilaa 20 u dhaxaysa, qaarkoodna high school ay ka qalin jibiyeen, kuwa kalena ay jaamacadii hadda bilaabayeen, kuwana ay dhiganayeen. allah u naxariisto gabdhahaasi ayaan leenahay. marka arintan waxay si adkeynaysaa ninkan waxa uu leeyahay gaariga anigu ma aanan wadin oo walaalkii ayaa waday, laakiin isaga ayaa hadda dambigan ku eedeysan. arintaasina qareenada difaacaya waxay ku doodi doonaan qofkan maba ahanba dacwadahan qof khaldan ayaa lagu soo oogay oo isagu gaariga ma uusan wadin. waana tii horey sidoo kalena maxkamadda racfaanku ay u xugmisay in ninkan horey dambiye kale inuu usoo galay aan xeerbeegtida loo sheegi karin oo maxkamadda dacwadiisa aan laga sheegi karin. marka labadaasi arrinba waxaa la leeyahay waxay adkaynaysaa in la cadeeyo dilka heerkiisu yahay midka saddexaad oo 5 dambi uu ku eedeysan yahay. marka waxaa laga yaabaa in lagu helo dambiga ah in uu shil ku geystay gaari, marka isma keenayso gaarigiina ma wadinna waa uu leeyahay, sidoo kale walaalkii ayaa waday. arintana dacwadana isaga ayaa lagu soo oogay. marka arrimahaasi sida isku qaban doonaan waynu arki doonaa, laakiin maxkamadiisu maanta ayay si rasmi ah u bilaabatay iyadoo xeerbeegtidu haddii ay dambigaasi ay ku helaana 50 sano oo xabsi ah uu ninkan mutaysan karo. waxyaabaha ka soo kordha maxkamadda ninkan Derek Thompson oo gabdhahaasi 5 ah Soomaalida shilka gaari ku dilay ku dhawaad 2 sano ka hor waa idin la soo socodsiin doonaa haddii alla idmo. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.